بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله waxaan qaadan doonaa casharkeenii sideedaad ee koorsadii aan ku sharaxaynay sida daatada loo maareeyo loona analyze gareeyo anagoo isticmaalayna statistical softwareka loo yaqaano stata casharkeena sideedaad waxaan ku sharxi doonaa sida statada looga helo caawimaad looga helo dabcan markaad sida statada caawimaad looga helo aan dhahayno waxaa ula jeednaa marka aad stato data ku analyze gareynaysid datadaas aad ku analyze gareynaysid commandigeedii haddaad taqaanid laakiin weygii ama habkii aad u isticmaali lahayd oo kale aadan aqoonin stata command oo waxa jiro ku caawinaya kaasoo sharaxaad dheeraad ah kaa sii doona sida commandigaas aad u isticmaalaysid sidoo kale waxaa jiri karta marxalad ah inaadan commandigii aad datadan ku analyze garan lahayd gebi ahaanba aadan aqoonin markaasoo kale waxaa aad u fiican oo aad u habboon ama kuu fudud inaad isticmaashid wax loo yaqaano google-ka ama chatgpt ama gemini oo kale inaad isticmaashid marka qaabka istatada caawimaad looga helana waa casharka oo ku sharxi doonaa isla markaasna qaabka caawimaad looga helo haddii gebi ahaanba aadan commandigi aqoon sida looga helo caawimaadda chatgpt ama gemini-na sidoo kale casharka waan ku sharxi doonaa insha allah casharka labadan topic ayaan ku sharxi doonaa number one sida caawimaad loo helo iyo markii natiijada caawimaadda ay heshid saad u akhri lahayd amase aad u fasiri lahayd ugu horreyn commandiga help command muxuu yahay help command waa command kaas oo noo soo bandhiga natiijada caawimaadda aan weydiisanay natiijada caawimaaddaas aan ka weydiisanay command gooni ah amase topic gooni ah طبعا topic gooni ah amase command gooni ah ayaan istatada waxaan weydiisanay inay naga caawiso inaan si fiican u fahamno sharxad dheeraad ay naga siiso kaas ayuu noo soo bandhigi doonaa caawimaaddaasna wuxuu noogu soo bandhigi doonaa shaashad gooni ah ama new ah oo cusub oo aan ahayn midda ay ka soo baxdo oo resultiga window loo yaqaano caadi markii data la analyze garaynayo resultigeedii ay ka soo baxdo meelaan taas ahayn ayuu noogu soo bandhigi doonaa oo shaashad gooni ah ayuu caawimaaddaas resultigeeda noogu soo bandhigi doonaa qaybta ugu horeysa oo caawimaadda sida loo helo amase maxaa horta caawimaaddaas sababta caawimaad horta loo weydiistaa maxay tahay aan qoor marno waxaan ognahay in markii aan command qorayno in si qaldan laga yaabo inaan magaca command inaan u qorno haddii aan si qaldan command u qornana resultiga statada ay noo soo saari doontaa waxay noqon doontaa error result sababta waxaan ognahay statada inay tahay case sensitive oo wax yar haddaa commandi ka qaladno in resultiga noo soo bixi doona uu noqonayo error inuu noo soo bixiyo marka arrintaas xalkeeda degdega ah waxaa waaye inaan isticmaalno commandiga loo yaqaano help commandiga kadibna aan raacsiino magaca saxda ah ee commandiga aan rabno markaas ayaan heli doonaa faahfaahin dheeraada qaabka commandigan aad rabtid sida loo isticmaalo iyo sharxaad dheeraada saas ayaan ku heli doonaa sidoo kale waxaa jiro pdf kaas oo si caam ah noogu sharxaya dhammaan stata commandska si guud noogu sharxaya hadda kan waxaan ka hadlaynay command gooni ah oo markaas data ku analyze garaynayno laakiin si general haddaad rabtid inaad stata commandska dhan aad si guud u fahamtid waxaa jiro pdf ayaa jiro kaasoo naga caawinaya in aan caawimaad u helno sida u qori lahayn commandiga habka ugu saxsan ee commandiga loo qoro sidoo kale waxaan casharka maanta si guud ugu sharxi doonaa inkastoonan mid mid u sharxi karin oo koorsadu intay socoto aan si fiican insha allah ugu fahmi doono waxyaabo ama astaamana laga rabo inaan fahmno shantan astaamood ayaa nalaga rabaa inaan fahmno markii aan caawimaad ka dalbanno statada number one waxa waaye underline of the keyword dabcan markaan caawimaad dalbanno wuxuu noo soo saari doonaa commandska qaar ayaa waxay yeelan doonaan qayb yar oo yacni commandigan loo soo gaabiyo qaybtaas ayuu wuxuu noo saari doonaa xariijin ayuu hoose nooga soo saari doonaa taasoo macnaheedu ay tahay in commandigan dheer intaas yar loo soo gaabi karo yani astaanta labaad inaan fahmnana laga rabo waxay tahay waxa loo yaqaano square bracketskan waa arki doonaa si guud hadda yara sii sharxo wax kasta oo square bracket la geliyo macnaheedu waxa waaye shaygaas waa optional waa ka tegi kartaa sidoo kale waxaan sharaxi doonaa ama ku arki doonaa markii aan caawimaad dalbanno waxa loo yaqaano far list
var list waa variable list in commandigan aad dalbatay yani qaabka inta variable la raacsiin karo iyo inaan la raacsiin karin optional tahay tusaale ahaan sidoo kale waxaan astaanta afraad waxay tahay sida loo isticmaalo comada badanaa waxaa loo isticmaalaa markaad rabtid shaygan aad dalbatay marka additional information aad ka rabtid ama variablekan aad ka rabtid inuu xog dheeraada kuu soo saaro oo intii hadda kuu soo saaray in ka badan tusaale ahaan aad rabtid kan ugu dambeeyana waxaa waaye waxa loo yaqaano use or ama symbolkan vertical pipekan qaabka loo isticmaalo ayaan arki doonaa shantan astaamood aad ayay muhiim u yihiin dabcan casharka maanta kuma wada sharxi karno ama casharka sideed kuma wada sharxi karno dhammaantood laakiin koorsada intay socoto waxaan rajeynaa shantan astaamood mid inaan u fahmno iyo mid kasta with example inaan ku qaado doono insha allah use of pdf start help inaad pdf start help inaad isticmaashid horta waxaa si fudud kuugu filan oo dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay kuwa xalli kara inaad help commandiga isticmaashid adigoo commandiga aad rabtid ku qoraysid command windowga adigoo ku qoraysid intaas way kugu filan tahay ama dhammaan baahiyahaaga ama command kasta oo aad u baahan tahay inaad sharaxaad ka heshid intaas way kaaga filan tahay laakiin sidoo kale waxaa jiro pdf kaas oo kaa siinaya faahfaahin dheeraad ah oo kugu filan iyo talooyin ku siinaya kaas oo loogu talagalay dadka istaatada levelka dhexdhexaadka ah ama advanced heer yani skill sare u leh istaatada dadkaasaa aad loogu talagalay ama aad u isticmaali kara laakiin haddii adiga aad tahay qof hadda bilow ah oo istaatada ku cusub waxaa lagula talinaya inaad isticmaashi help commandka kaasoo commandiga aad rabtid aad ku qoraysid qaybtan oo command windowga ku qoraysid kadibna uu ku siinayo uu kuu soo saari doono viewer cusub shaashad cusub uu kusoo saari doono taasoo ku sharaxayo dhammaan waxyaabaha aad uga baahan tahay commandigaas gooniga ee aad dalbatay variableska la raaci karo qaabka loo qori karo sharaxaad uu kaa siinayo taasaa dadka oo beginnerska taa ayaa aad ugu filan haddii aan xog ku analyze garaynayo stata laakiin aanan aqoonin commandiga xogtaas ku habboon waxaan si fudud u weydii karaa ChatGPT tusaale ahaan xog aan haysto ayaan rabaa inaan descriptive statistics ka soo saaro laakiin ma aqaano commandiga xogta descriptive statisticska lagu soo saaro waxaan weydiinayaa ChatGPT waxaan leenahay which stata command is used to run descriptive statistics kadibna enter ayaa leeyahay haddaan fiirino resultiga noo soo baxay stata marka la joogo commandiga loo yaqaano summarize ayaa waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro descriptive statisticska xogta ama variableska ah numeric variableska marka summarize ay isticmaalaysid variableka u isticmaalaysid waa inuu noqdo numeric waa inuu noqdo numeric variableska ayaa loo isticmaalaa in descriptive statisticska looga soo saaro commandiga loo yaqaano summarize commandigan wuxuuna siinayaa xog ku saabsan celceliska xogtaas aan haysano standard deviationka xogta tirada xogtaas aan haysano tirada ugu yar xogta haysano tirada ugu badan iyo variable kasta ee xogteena ah inta observation ee uu ka kooban yahay tusaale haddii aan rabno in aan statada ku qorno waxaad ku qori kartaa stata commandiga tegeysaa waxaad ku qoraysaa summarize kadibna variableka aad rabtid dabcan ma variablekan wuxuu ula jeedaa variableka adiga markaas aad daraasada ku samaynaysid ama aad rabtid inaad descriptive statistics aad ka ogaatid summarize waxaan dhahnaa waxaa loo isticmaali karaa keliya variableska ah numeric ah tusaalahan variable numerica maxaa kamid ah haddaad dad weydiisid incomeka dadka soo gala mushaaraadka salariga ay qaataan result ee imtixaan ay galeen ka keeneen qofka dhererkiisa heightkiisa waxyaabahaas oo dhan waa xog oo variables oo numeric ah waay kuwaas waxaa loo isticmaali karaa in aad kasoo saartid waxa loo yaqaano descriptive statistics adoo isticmaalaysid commandiga loo yaqaano summarize ka waran haddii xogta aan haysta ay tahay xog categorical data ah haddaan haysto tusaale ahaan dadka genderka dadka jinsiyadda dadka xog ka kooban nuuca gaariyaasha ay wataan
xog ka kooban kasoo qaad wadamada ay kasoo jeedaan waxyaabahaas xog ka koobana kasoo qaad haystaa xogta noocaasa marka la analyze gareynayo resultiga laga soo saaro waxa loo yaqaanaa tables ama frequency tables ayaa laga soo saaraa so sidee baan frequency tables uga soo saari karaa ama ugu dhisi karaa startada isla su-aashaas waxaan weydii karnaa ChatGPT ayaa weydii karnaa waxaan dhihi karnaa what is the starter command طبعا starter si qaldan oo qoray starter command to construct a frequency table commandiga lagu dhiso marka la joogo starter half okay طبعا resultigaana noo soo saaray waxa ii muhiimsan marka waxa iigu muhiimsan waxaa waaye commandigaani waxa iigu muhiimsan waxaa waaye commandigaas haddii aan rabo inaan frequency table starter kasoo saaro ama resultigaas aan soo saaro waxaan isticmaalayaa wax loo yaqaano commandiga loo yaqaano tabulate ama simply waxay usoo gaabi kartaa tab ayaa usoo gaabi kartaa hataa qaabka oo loo soo gaabiyo wuu noo sheegay tab command ayaa isticmaali kartaa tabulate ayaa qoraysaa kadibna variableka aad rabtid inaad frequencyga ka samaysid ayaa raaci doontaa qaabkaas ayaa loo isticmaalaa so any command kasta oo aad rabtid ama aad ku wareertid sidaan hadda aan u weydiinay ayaad u weydii kartaa ChatGPT-ga ama even Google Gemini amase Google Chrome-ka xataa weydii kartaa saas ayuuna kugu soo saari doonaa resultiga xataa haddii command aad gelisid starter qaybta oo command window-ga haddaad gelisid laakiin resultiga uu kusoo saara ay error noqoto oo qaybta result window-ga uu error kaaga soo saaro resultigaas ayaad soo koobiyey kartaa kadibna waxaa keeni kartaa qaybtan oo ChatGPT-ga kadibna wuxuu kuu sheegi doonaa waxa kaa qaldan iyo qaabka aad u sixi kartid ama commandigaas qaabka uu saxda ku yahay oo uusan error dambe kugu imaanin ayuu kuu sheegi doonaa so qaybtan waxaan ku sharaxi doonaa haddii commandi aad taqaanid laakiin aadan aqoonin qaabka loo isticmaalo ama aad rabtid inaad tafaasiil dheeraad ah sida loo isticmaalo kale tusaale ahaan aad baratid ama ogaatid oo kale sidee baa looga ogaadaa starter command see loo ogaadaa waxaan sharaxnay in uu jirto command loo yaqaano help command kaasoo loo isticmaalo in command kasta ee aad rabtid inaad xog dheeraad ama macluumaad dheeraad aad ka ogaatid oo kale aad u isticmaali kartid so hadda waxaan isticmaalaynaa help command kadibna waxaan raaci doonaa commandiga hadda aan soo wada baranay oo loo yaqaano summarize ayaa waxaan rabnaa inaan xog dheeraad ah iyo sida loo isticmaalo aan ka ogaano so help summarize aan leenahay kadibna okay markaan dhahno waxaa noo soo baxday natiijadan aa ujeediin ama shaashadda aa ujeediin aa noo soo baxday shaashadda markay noo soo baxdo marka waxaa noo muhiimsan 3 shay kan ugu horeeya qaybta ugu horeysa waxaa waa qaybtan oo view complete PDF manual entry-ga ah manualkan haddaan ku dhufano wuxuu na siinayaa description ku saabsan ama sharaxaad ku saabsan summarize dabcan summarize horena usoo sharaxnay haddana meesha haddaan fiirino wuxuu ku sheegayaa inay xisaabiso isla markaasna soo bandhigto summary statistics oo summary statisticskii waxyaabaha hadda soo sharxaynay oo meanka iyo medianka iyo waxa loo yaqaano minimum number iyo maximum number waxyaabahaas oo kale ayay noo soo saartaa haddii tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay aan var list ama variableska aad datada aad ka rabtid in lagaaga soo saaro summary statisticska haddii aadan caddaynin oo just summarize aad qortid wuxuu kuu soo saari doonaa ama kuu calculate gareyn doonaa dhammaan variableska aad xogtaas ku haystid descriptive statistics-kooda ama ayaga ayuu summary kaaga samay doonaa qaybtan xigta haddaa fiiriso quick startena wuxuu kuu sheegayaa haddii tusaalayaal oo qaabka loo isticmaalo summarize waa laba daarat hal variable summarize aad qori doontaa dabcanna kadibna waxaad ku qori doontaa variableka aad rabtid inaad descriptive statistics ka soo saaratid haddaad dhowr variable rabtid qaabkan u isticmaali doontaa dabcan sharaxaad dheeraad ah ayuu meeshan ka bixinayaa iyo even haddii aad rabtid inaad step by step aad startada uga tagtid qaabka aad menu ahaan u isticmaalaysid ayuu qaybtaana ayuu kuu sheegayaa haddaan qaybtan ka laabano marka qaybta ugu horeysa ahayd qaybta xigta oo scientifica waa qaybtan haddaad fiirisi haddaad la socotiin markaa casharka sharaxaynay
waxaa jirtay 5 characteristics oo la raaciyo command-ka kuwaas oo muhiim ah inaad fahamtid. Kan ugu horeeya wuxuu ahaa in command-iga qayb keyword ah oo la underline garay doono inuu yeelanayo. Haddaa fiirisid marka summarize waxaa underline garaysan ama hoosta ka xariiqan S iyo U ayaa hoosta ka xariiqan. So summarize dhan waxaa usoo gaabi kartaa intii summarize aa qori lahayd oo si dheer aa u qori lahayd SU ayaa usoo gaabi kartaa. Sidoo kale waxaan ogeyn wax kasta oo square bracket la geliyo inay yihiin optional. So haddii summarize kaliya aa qortid result ayaa kuu soo bixi doonta. Yani waajib ma ahan inaad raacisid var list ama variable list inaad raacisid waajib maahan. Waxyaabaha raaci kara marka command-kan haddaa qortid waxyaabaha raaci kara ama option waxyaabaha raaci kara waxaa kamid ah if oo kale waa raaci kartaa, in oo kale waa raaci karaa. Haddii aad xog oo weighted data oo kale tusaalahan haddaa haystid oo kale sidoo kale waa la raaci karaa. Intaas markaa kasoo gudubtid comma wixii ka dambeeyana waxaa imaan kara waxa loo yaqaan options. Optionska marka meeshaan imaan kara waa kuwaana. These are the options. Commadaas kadib waxaa qormi karaa detail aad qori kartaa detailka naftiisa dabcan asaga naftiisa haddaa fiiriso hoostiisa waa xariiqan yahay d bisa xariiqan soo detail dhan intaa qori lahayd d bisa qori kartaa. Optionska meeshaan raaci kara waxaa kamid ah mean only format waxyaabahan oo dhan waa waxyaabaha raaci kara. Haddaa hoos soo socono dabcan qaybtan hoose haddaa imaanana meeshaan wuxuu kugu siinayaa examples. Haddaa intaas dhan kusoo fahmi weysid examples ayuu meeshaan kugu sii doonaa. Datadaas wuxuu ku leeyahay auto dataas markuu soo geli kadibna summarize ayaa dhihi kartaa wuxuu kugu soo saaraya dhammaan xogtan ayuu kugu summarize garay doonaa descriptives ayuu kugu soo saari doonaa. Haddii variable gooni aragtid summarize NBG ama weight labadaas variable ayaad geli doontaa. Qaabkan ayuu tusaalayaal ayuu kugu soo saaray. Dabcan annaga marka summarize si gooni u qaadan doonaa oo 10 ka dhigi doonaa laakiin hadda muhiimadeena aan u isticmaalayno waxay tahay inaan ku sharaxno help ayaa ku sharaxayna maana summarize si gooni ah ayaan u qaadan doonaa oo analyze garay doonaa resultiga ka soo baxa qaabka loo isticmaalo iyo resultiga ama natiijada ka imaata qaabka loo fasiro waan 10 ayaan ku sharxi doonaa. Sidoo kale markaad joogto starter hababka aad caawimaada ugu heli kartid waxaa kamid ah inaad tagtid wax loo yaqaano help menugaas inaad ka dooratid help inaad tagtid. Help markaad tagtid simply qaybta ugu horeysa waxaa waaye PDF documentation kasaa ku dhufanaysaa kadibna dhammaan documentska startada iyo wuxuu ku sii doonaa full guidance ama general guidance guud ayuu ku sii doonaa. Laakiin kan lagulama taliyo dadka inta ugu badan oo beginnerska sababtoo ah waa aadna waa u weyn yahay. Adiga command-iga goonida ee aad rabtid iyo waxyaabahaas meesha uu ku jiro iyo in aad fahmi weysaa laga yaabaa. Sidaa darteed dadka beginnerska inta ugu badan waxaa lagula taliyaa inay ku koobnaadaan qaybta oo command window-ga inay command-iga ay rabaan inay ku qoraan. Casharka dhexdiisana dabcan ku sheegnay. Sidoo kale qaybtan oo help-idaah kaliya kuma koobna PDF kuma koobna advice ay ku siinaysaa contentska waxyaabaha documentiga uu ka kooban yahay. Meeshaan waxaad ku qori kartaa search-iga waxaad ku qori kartaa command-iga goonida aad rabtid. Start command-igii qaybtan hoose yaalay sidoo kale meeshaan waa ku qoran yahay haddaa fiirisid announcement-yada waxyaabaha ay ku dhawaaqayaan traininadooda startada nooca haysid version kuu yahay waxyaabaha cusub ee hadda ama versionska cusub oo waxyaabaha lagu update gareynaa starter waxyaabahaas oo dhan meeshaan waxaa ku jira information oo aad u tiro badan oo startada ah oo qof kastoo starter baranaya inuu aad ula socdo ay muhiim tahay ayaa sidoo kale meeshaan ku jirto.